bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel kasta aad joogtaan waxaan idin leenahay kula caam wa antum bikheer ciid wanaagsan meel kastoo aad joogtaan xubinta falaqaynta waxaan kusoo qaadan doonaa ciyaarta xiisaha badneyd ee dhex martay xulka qaranka wadankaasi Masar iyo weliba xulka Uruguay oo kamid ahayd tii labaad ee koobka adduunka laga ciyaaray kadib kulankii furitaanka ee shalay ciyaarta marka ugu horeysa waxaa la baasay 3 galabnimo waqtiga geeska Afrika ciyaarta waxay ahayd mid aad u xiiso badan qaybteeda hore iyadoona taageerayaal fara badan oo labada wadan ka kala socday ay soo buuxiyeen garoonka xulka qaranka wadankaasi Masar si weyn ayuu u maareeyay kadib markii uu qaab difaaceed munadam ahaa oo aad u fiicnaa oo nidaamsan la soo shirtagay geesta kalena waxay ahayd xulka qaranka wadankaasi Uruguay waa ay yaraayn fursadaha ay sameynaysay laakiin ciyaar fiican labada xul qaybtii hore waxay ku dhamaatay ever taasoo ahayd ciyaar aad u fiican oo isla markaana ay yaraayeen qaladaadka inta badan ka dhaca xulka Masar mushkiladaha haystay waxay ahayd kubadaha laadadka ay dhibaato ay ka taagnaayeen iyo waliba Suarez iyo Cavani oo iyagu madaxa ku fiican iyo sidoo kale in ay xakameyn waayeen dhaqdhaqaaqa weeraryahanada xulka qaranka wadankaasi Uruguay gaar ahaan Cavani iyo Suarez mushkilada Uruguay haysta waxay ahayd 30 sano ugu dambeeyay ciyaarta furitaanka aad bay ugu adkeyd inay badiso xitaa bareejo iyo gool darro ay inta badan la kulmi jirtay haddaba laakiin waxa isweydiin mudan goolka goorma laga dhaliyay daqiiqadihii ugu dambeeyay ayaa laga dhaliyay 89 daqiiqo ay ahayd goolka xidiga Atletico Madrid ee u ciyaara ayaana ka dhaliyay goolkaas Jose Jimenez laakiin inta badan waxa isweydiin mudan xulka Masar waxa laga dhaliyaa daqiiqadaha ugu dambeeya sida uu difaacana ciyaar aad u fiican oo ciyaarayo haddana inta badan waxa la sheegaa laba arrimood oo sababa taasi in xulka Masar oo ciyaaryahanadiisu aysan ku fiicneen kubadaha madaxa iyo in jir ahaan ciyaaryahanadu ay aad u daalaan daqiiqadaha dambe ee kulamada ay ciyaarayaan fiiri goolka siday u dabaaldegeen Uruguay waxa dareemi kartaa inay aad ugu dhibaatootay furfuridda ciyaarta sida Masar ay u xirxirtay markaas inkastoo Masar ay ciyaar wanaagsan ay ciyaartay haddana saameyn weyn ay ku yeelatay maqnaashaha Mohamed Salah oo kulankan ka maqnaa laakiin qaybta keedka fadhiyay haddaba maxaa laga bartay 10 walxaato marka ayaa laga bartay aan ku sheegaya kow Masar oo ka qayb gashay koobka adduunka markeedii shanaad labo xulka Masar oo markii saddexaad u xiriir gool dareystay taariikhda ka qaybgalkiisa koobka adduunka number 3 Masar oo goolkii toddobaad looga dhaliyay taariikhda koobka adduunka 4 tababaraha Uruguay oo markii labaad ka guuleystay Masar 5 gool haye Maxamed Shenawi oo laga dhaliyay goolkiisii shanaad intuu goosha ugu jiro xulka qaranka Masar taariikhda 6 xulka qaranka wadankaasi Masar oo markii tobanaad laga badiyay 36 ciyaarood oo madax u nahaa ama waa leelinayay Hector Cuper ninka lagu magacaabo 7 xulka qaranka wadankaasi Uruguay ayaa markii 63aad guuleystay 137 kulan oo tababaro u ahaa tababare Oscar Tebes number 8 xulka qaranka wadankaasi Masar ayaa markii labaad gool iyo waxba looga adkaaday taariikhda koobka adduunka number 9 xulka Uruguay ayaa kulankiisii 52aad koobka adduunka ciyaaray number 10 xulka qaranka wadankaasi Masarna wuxuu dhaliyay goolkiisii 81aad ee koobka